qofka khayrka ku hormara wuu ka qiimi badan yahay kana ajir badan yahay qofka kale. rasuulka intuu asxaabtiisa dhex fadhiistay buu yidhi atadruuna ma alghiiba, carabkan waxyaabaha uu gooyo waxaa ugu weyn waxa weeyaan waa xanta weeyaan. xanta dad badan bay la fududahay, dad badan bay uga fududahay, weliba ugala fududahay biyahaas oo la cabeeya. rasuulku wuxuu yidhi atadruuna ma alghiiba, atadruuna ma alghiiba, war ma garanaysaa xanta waxay tahay? xanta waxay tahay ma garanaysaa? waxaad ka soo qaadaan hadalkan inaanu rasuulku oran 1440 sano ama 32 sano horteed inaanu oran. inuu rasuulka caaw ina dhex joogo, inuu rasuulka adiga kula hadlayo, khaasatan caawo dadkiina maqlayo inuu rasuulku uu inala joogo halakan oo uu halkan baaltooga inala joogo. ka soo qaad inuu kula hadlayo adiga, ka soo qaad addoontii allah ya addoonkii allow, inuu idin leeyahay atadruuna ma alghiiba, atadruuna ma alghiiba. axaadiista waa in aanu soo guurinaa, aayaadka qur'aaniga ah inaynu soo guurinaa, kitaabka aynu ka soo guurinaa oo aynu keennaa waaqica dhexdeena, in aynu keennaa, in aynu iskula hadallaa, in aanu ka yeelnaa labadaa waxyo qur'aanka iyo kitaabka in iminka ay soo degahayaan ya oo ilaahay dhexdeena rasuulkii uu keenay oo uu inagula hadlayo. waa inaan sidaas dareennaa, nafsadeena dareensiinaa, waa inaan shayaadiinta cayrinaa. ya ka soo qaada rasuulka inuu idin leeyahay maanta atadruuna ma alghiiba, war ma garanaysaan xantu waxay tahay? islaantaa ay laguhu isu saaran yihiinay ya oo walaalaheed cunaysaay, ma garanaysaa xantu waxay tahay? kaa fadhi ku diriirka fadhiyo, timuhu caddaadeen, afka ka uburinayo, ma garanaysaa xantu waxay tahay? rasuulkaa inoo jawaabahaya. dadkii way garan waayeenoo waxay yidhaahdeen allah allahu warasuuluhu aclam, ilaahay iyo rasuulkiisaa yaqaana. jawaabta waxay ka imaanaysaa afkaa udgoon ee rasuulkeena suuban. ku salli moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmuطalib ibni haashim ibni cabdi munaaf. rasuulkaa jawaabta halkaasay ka imanaysaa. rasuulku wuxuu leeyahay dikruka akhaaka bimaa yakrah, dikruka akhaaka bimaa yakrah, walaalkaa oo aad ku sheegtid wuxuu nacayo weeyaan. waa walaalkaa oo aad ku sheegtid wuxuu nacayo. walaalkaa oo aad ku sheegtid maxay? wuxuu nacayo. gabadhu way madowdahay, markaasaad tidhi tan madow sooma aadan arag. way gaaban tahay, tan gaaban sooma aadan arag. tan ishala gabadha cawarka ah, tan lugta gaaban sooma aadan arag. oo taa baryaha waaweyn sooma aadan arag. heblaayo waad u tilmaamaysaa, waad u tilmaamaysaa, laakiin isagii raalli kama aha, isagii raalli kama aha hadalka aad leedahay. ya waa walaalka oo aad ku sheegtid maxay? wuxuu nacayo. dadka o dhan baa ku sheega. marka qofka markaad tilmaamaysid, annaga waxaan ku tilmaanay sifooyin qofkii uu nacayo, laakiin uu yahay oo run ah oo xaqiiqo ah. ilaahay baa yeelay. gabadhu way madowdahay, way in la-dahay, way gaaban tahay, ya soo ad garta maaha, laakiin inaan ku tilmaanna maaha sidaa iyada ah. magacyadiina waa wanaagsan isugu yeeraa layidhi. qofku wuxuu nacayo inaad ku tilmaantid maaha. aad bay u xuntahay arrinkaa isaga ah. saxaabadu way samayn jireen, markaasaa waxay yidhaaheen yaa rasuul allah, bal ka waran hadalka uu nacayo hadduu yahay oo uu ku sifaysan yahay, ka waran. ya bal ka waran lugihiisu hadday baasta yihiin oo aad ay u dhudhuuban yihiin, bal ka waran. tiimihiisu hadday adag yihiin, ka waran. hadduu fool xun yahay, ka waran. dhuxulow hadduu yahay, ka waran. ya bal ka waran. haye haddii waxa aanu ku sheegayno walaalkeen uu yahay, bal ka waran rasuul allow. allah jawaabta uu rasuulku inoo sheegaya macaankeeda fiiriya. wuxuu yidhi in kaana fiihi maa taquulu faqad اغtabt. allah
waxa walaalkaa aad ku sheegaysid hadduu yahay waad xamatay xanta aan idin sheegahayaa oo aan weliba dhibaatadeeda iyo dembigeeda intuu la eg yahay aan idin sheegi doono waa ka rasuulku uu leeyahay haddii walaalkaa uu yahay waxa aad ku sheegaysid isaguna uu nacayo waad xamatay gabadha way madowdahay tan madowbaa tiri waa madowdahay waa run waad xamatay walaashaa waad xamatay kan gaaban markaad leedahay hadduu gaaban yahay waad xamatay haddaanu gaabneenna waxaad ku sheegaysid haddaanu ahayna waa kan wain lam yakun fiihi faqad bahadta allah waxa aad ku sheegaysa haddaanu ahayn oo xaasidnimo iyo uurxumo haddii uu ku geeyey rasuulku wuxuu leeyahay waad dulumtay walaalkaa waad dulmisay xanta marka waa tan rasuulka inoo qeexay xanta wuxuu yihi rasuulka waa walaalkaa oo aad ku sheegtid waa walaalkaa oo wuxuu nacayo aad ku sheegtid weeyaan markaasay yidhaaheen maxay haddii uu yahay waxa aanu sheegayna balka waran rasuul allow markaasuu yihi haddii uu yahay waxa aad ku sheegaysid hadduu yahay qofkan oo uu nacayo waad xamatay haddaanu ahayna waad dulmisay allah dadka dhaalimiinta eena waad garanaysaan halka la geynaya maalinka qiyaamaha ah allah war xanta wallahi yaanay idinla fududaanin xanta shay aad u xun weeyaan rasuulka in badan buu ka digay oo uu ka digay bal xadiiskana ila dhegaysta waxa weeyaan carabkaa in la ilaaliyo weeyaan waa inaad carabka maalin walbaba qabataa oo aad jiidaa oo aad dhaarisaa oo aad la socotaa oo kelmad haddii uu doono inuu ku dhawaaqo waa inaad ogaataa maxaa wacay fiiri jirkii kale xubnihii kale ee jirkeeda uu ka koobnaa ayaa waa walba markuu beriyo rasuulku wuxuu leeyahay qof walbuu kala hayaa soomaha nafsadiisuu suuq geenayaa ima inuu soo xoreeyo ima inuu halaago soomaunan oran jirka marka ma doonayaan in la halaago dhegtu ma doonayso in la halaago ishu ma doonayso in la halaaga ilkuwa ma doonayaan madaxa iyo timaha lugaha ma doonayaan marka xubnihii jirkoo dhan ayaa qofka intaanu kalihin oo aanu suuqa geynin oo uusan tegin oo uusan soo halaagin ayay dhaarinayaan subax walbo waa walboo berya waxa weeyaan jirka intiisii kale ayaa carabka intay u ururaan ayay dhaarin hayaan oo maxay leeyihiin ittaqi illaaha fiina carab yahow ilaahay nooga baq bal fiiri ma jirka kalaad ka xun tahay adugu marka jirkiibaa baqaya lugtiibaa baqaysa gacantiibaa baqaysa ishiibaa baqaysa waxaa baqaya dhegtiibaa baqaysa sankiibaa baqaya wax walbo jirka kamida xubin walbo jirka kamida baqaysa markaasay waa walbo berya carabkay la hadlaysa oo ay leedahay ittaqi illaaha fiina adugu maxaad u dhihi laadahay sidaa addoontii allah sidaa maxaad u dhihi laadahay may maqashaa maxaad addoonkii allow sidaa u dhihi laadahay ittaqi illaaha fiina fainamaa naxnu bika fain istaqamta istaqamnaa wain icwajajta acwajajnaa ilaahay nooga baq annaga adiga un baan ku nahay waddadii aadna saartid oo aad nagu dhaqaajisid un baanu ku dhaqaaqi halkii aadna marisid un baanu mari ilaahay nooga baq waddo xun hana marinin fain istaqamta istaqamnaa haddii aad toosnaatid waddadii ilaahay ku toosnaatid dhanka khayrkale aad noo goysid beenta aad ka fogaatid aad maaragtaa runta u noogu dhaqaaqdid xalaashu aad noogu dhaqaaqdid wuxuu ilaahay raalli ka yahay aad noogu dhaqaaqdid istaqamnaa sidaa un baanu annaga ugu toosnaanaynaa oo aanu maaragtaa annaga gadaashaadaanu nahay adigaanu ku raaci haddaad toosnaatid waanu toosnaan wain icwajajta
wajajnaa haddii aad qallocsanaatid shaydaanka uu ku duufiyo nafsadda iyo hawadii iyo ku duufiyo oo maaragtaa waddadii xaqa aheed ee toosineed lagaa rido annagana dee waanu kaa daba dhici adiga un baanu ku garab joognaa adiga un baanu ku gadaal joognaa nin yahow ilaahay nooga baq waa walboo barye ogow waa walboo barya adigu maxaa sidaa u dhihi laadahay mase og tahay carabkaaga wuxuu kuu gooynayo miyaad og tahay adigu miyaad ogsoon tahay carabka wuxuu kuu gooynayo addoontii allahi ma ogsoon tahay carabka wuxuu kuu gooynayo ma ogsoon tahay ayib abu darda waa idiin sheegay muxaadaradii hore ayaanu kugu sheegay saxaabiga jaliilka ah abu darda radia allahu canhu dadkii buu isaga fogaaday dadkii oo dhan buu ka cararay markaasaa wuxuu aaday xabaaluhu aaday allah xabaalaha muxuu ka samaynayaa abu darda wuxuu la joogay oo uu maqlayay markuu mucaad ibni jabal uu lahaa wahal naxnu mu'aakhaduuna bima natakalamu bihi ya rasuula allah oo rasuulkana uu lahaa fakilatka ummuka ya mucaad wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim taa ayuu ogsoonaa taa ayuu maqlayey yaa carabkaas waxyeeladiisu yaqaanaa xantuu garanayaa dhibaato inay leedahay markaasuu insaankii isaga fogaaday xabaaluhuu tegey halkaasuu waktigiisa inta badan ku lumin jiray markii la weydiiyey wuxuu yidhi ajlisu ilaa qawmin yudakiruunii macaadii aad u dhegaysta ajlisu ilaa qawmin yudakiruunii macaadii waidaa qumtu falaa yaktaabuunii allah ya subxaana allah yah abudarda radia allahu canh abudarda allah ka raali noqdo wuxuu yidhi anigu idaaya dad yahow idaaya dadka nool waan ka tagahayaa dugsan mahaye idaaya dugsan mahaye idaaya anigu waxaan la fariisanhayaa qowm ayaan la fariisanhayaa oo aan jeclahay waktigayga inaan ku lumiyo qowm ayaan la fariisanhayaa yudakiruunii macaadii ixusuusinhayo gurigaygii runta ahaa yaa allah maxaan u baahannahay qoomkaas oo kale maxaan u baahannahay asxaabtaada wanaagsan oo kale asxaab ina xusuusinaysa yaa macaadkeenii aakhiradeenii gurigeenii runti ahaa halkaynu u laaban lahayn hawaari lahayn halkii laynoo diyaariyey qoom inuu xusuusiya allah maxaan u baahnaan lahayn yaa qoom ayaan la fariisanhayaa buu leeyahay abudarda qowm ayaan la fariisanhayaa ixusuusinaya halkay gurigaygii ixusuusinhaya mar alliyo markaa falaa yaktaab idaa qumtu falaa yaktaabuunii allah markaan ka tagana aanan ixamanayn gadaashayda aanan cunaynin dadka muslimka marka waxaa waaye dadka nool maanta cagsigooda weeyaan annaga waktiga waxaan ku luminaa fadhi ku jirin meelaha gaxwooyinka meelaha golaha cayaaraha meelaha maaragtaa meelo fara badan oo ilaahay aanu raalli ka ahayn qiila waqaala goobo wax lagu xamanayo hilbi muslim lagu cunayo meelahaasaan ku luminaa waktigeenii badi waanu luminaa marna waxaan ku luminaa maaragtaa qiila waqaala xantaasaanu ku luminaa allah inaan ogeyn qoomkan meesha ayna geynahayaan maxaa wacay dadkan aan waktigeena ku luminayna oo aanu ma aragtaa dugsanayna oo aan ilaahay uga fogaanay waa qoom aan aakhire ina xusuusinaynin waa qoom waa asxaab waa gole aan ilaahay ina xusuusinaynin mar alliyo markaanu ka tagno 5 saac 6 saac 7 saac intaanu ku luminay dadka fiican intaan u malaynay goob fiican aanu u malaynay markaanu waktigeeni badadiisiinay mar alliyo markaanu ka dhaqaaqnana markaasay xan inagu bilaabahayaan markaasay hilbaheeni cunahayaan annagoo nool bay na googoosanhayaan in wakti lagu lumiyo
in maaragtaa la dugsado mise ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa mudan war asxaabtiina fiiriya warnimiyo asxaabtiina ka feejignaada asxaabta aad la saaxiibaysaan dadka aad la joogtaan dadka aad waqtiga ku luminaysaan ha noqdaan dad ilaahay idin xusuusiya guryiinii runta ahaa aakhiro idin xusuusiya markaad ka tegaysaanna aanan idin cunaynin hilbihiina aanan gogoosanayn aan idin xamanaynin ilaahay asxaabta haynoo wanaajiyo gidigeen